أي ناقة ألاف ماريو بلتوري عمل جريس أي ناقة أنت تندي إنك سوف فيدو مثلا وحالة جنوليالكي هرم يا دي تضباتي لحد ذاتكي أو فيلم كحرنا يا دي تاس مخادين تاس قبلو ما إذن كخادين قبل دي أنكو أعرفنا بولس وني حر ولا لك أنا كرباش كي بود يدير سنبوت Hey, what's up, Hamdi? What's up, Oda Shirwa? هذا أمك شهيستو صوت صاري دلو. Hester? أمك لمية وحليرة هذا صور ماشي. Oh, can I hear it? Oh yeah, what? Let's go. تصدقوا كبح. هيا دلو. Kusada wala video YouTube, video show. Please share, like, comments, and subscribe. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته إنه جعلنا وعنا قداونا يساوي جرميدي شو فضلا هديك وعسوبتها جنالك سبسكرايب لي لايك شير كومنتي قنبلي لك فرق ما أنت نمحا إذن ودنا يلا 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 وإيش أنت أكيد إلا دعوة بل كلي لاب kali saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaan waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan okay maanta reaction ka awadno ama karbash ka awadno waxay tahay naagta iska soo dhigta ninka baba naaga nin iska dhigayso adduunka waxa waaye Soomaali horta macquul maahan naaga nin caad iska dhigta naftirkii waxaan dhahay shaarb ma usoo baxay gar ma usoo baxay wax badan ma usoo baxay dhahay laakiinse wixii waaba ka duwan tahay gabarta ma ku ficneen inay rag iska dhigto ilaan sababtoo ah darajada Ilaahay oo siiyay inuu qanacsanaatay haddana waxyaabo sharciga diida shariicada islaamka aan raali ka ahayn mar walba sameysay nala daawada muuqaalkeeda gabadha sida ninka iskaga dhigtay nala daawada bal kali saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaan waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan sidoo kale waxa taas kaaga daran gabadh wallahi bilaa gabar kala kacsana geesiyad ah laakiin geesiyad ah laakiin sida geesiyad ku noqotay ma ahan mid fiican sidoo kale waxa taas si dheer gabadha ya waxay fajac ka dhigtay dhammaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba maadaama dad badan ay leeyaban yihiin gabadha waxay sameysay sida qaabka u fikirtay maskaxda dadku dhaliyay iyo waxyaabo badan waxaan u sheegaynaa mar walba gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay marnaba saas aysan sameyn fanteen sidoo kale waxa aad aan u dhaleeceynaa ama marnaba aanan ka jeesanaynin dadka sameeya waxyaabaha lidiga ku ah gabdhaheena Soomaaliyeed wul waxaan ku sii jirnaa barnaamijkeenii reaction karbash ka socday gabadhi waa la soo bandhigay waa la soo khajiciyay qabba bal daawada gabartu waxay sameysay sida loo soo waday dadka soo bandhigay iyo meesha lagu soo bandhigay ila daawada oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guuleysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno deeq oo magaciisu deeqa yahay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah laakiin simit ma aysan ahayn booliiska Puntland inay soo bandhigaan gabadhaas sababtoo ah koow waxaa meel ku dhacay sharafteeda laba waxaa meel ku dhacay sharafta Soomaaliya saddex waxaa meel ku dhacay sharafta ciidanka booliiska ma ahayn inay soo bandhigaan ma ahayn inay social media la wadaagaan ma ahayn inay waxyaabo badan ay mudneed oo aysan mudneen inay ku sameeyaan sidoo kale waxaan u sheegayaa gabdhaha jecel
inay sameeyaan sidaas waxa shalay ku dhacay gabadhaas ayaa idinkeeda ku dhacaya wax shalay ku dhacay gabadhaas ayaa idinkeeda ku dhacaya laakiin mar walba waxa idin sheegaa ciidanka booliska gabadhaas waxay u baahan tahay dhaqan celin meeshaad ugu sameyn leedahay dhaqan celin aad sameyn leedahay inaad meel aad geysaan wax ay barato wax ay soo sameyso wax barasho la geeyo inay waxtar dadkeeda u sameyso wax badan ee dadka anfacda meeshaad ku sameyn leedahay waa qabateen waa soo xirteen qabababa inta ka bixi inta ku gan ma ahan taasina sameeyaan waxa aad mar walba inaad geysaan meesha dhaqan celinta ilan asluuban leenahay dawladda Soomaaliya anahay dal Soomaaliyeed dana waxaan leenahay asluubta inaad geysaan aan soo bandhigin wax walba si walba ay ugu qaadato aad sameysaan indirectly ama hoos u xalisaan ma ahan laakiin inaad soo bandhigtaan waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed waa idin jecelnahay waa idin jecelnahay weli gabdhaha jecel inay rag iska matalaan malaamaane sharafta diinteena ma ku jirto waxa idin leeyahay asxaabta dhamaan inta daawanaysa wadajir media show waa aniga ah Dimo Digama Bartakhiis oo ruusho culamaa al-Bartakhiis iyo Botswana sidoo kale dawladda waxaan ka codsanayaa in gabdhaha Soomaaliyeed in maanta sharaftooda aan doorno wax walba ay sameeyaan waa hooyo wayna ishay wayna labatay waan dhali doonaa waynoo dhexe waynoo dhigeen waa inaan sharaftooda mar walba ay ilaalinaa mar walba aan taxadirnaa mar walba aan sameynaa waxyaabo ayaga ku habboon afaantiisoma gabadhaas waa sidii loo gal waad aragteen meeshay ka dhacday waad aragteen wixii lagu sameeyay wixii khaladaad ku dhacay wixii karbaash ku dhacay inta ma lagu soo koobi karo ayada way khaldoontay maan khaladkeeda loo qabto waxa laga taxadiraa berisay ugu soo laaban lahayn falka maanta dhaca berisoo soo laabanin falka maanta bulshada dhexdeeda saameyn ku yeeshay inuu soo beri saameyn ku yeelan sharafteena saameyn oo ku yeelan dhaqankeena Soomaaliyeed inuu saameyn ku yeelan mar walba ciidanka booliska ee qaabilsan amniga gudaha waxa mar walba ka rajaynaynaa gabadhaas tamaanta ku dhacda berita inay gabar kale Soomaaliyeed isan ku dhicin mar walba aan ka taxadirno sharafta iyo karaamada ay gabadheena ay leeyihiin mar walba aan ka taxadirno sharafta ee Soomaalinimada ay ku leeyihiin gabdhaha maxaa sameynaa laan ka bacdi ulma qaadina ma tumeena ay booliska ulmani soo qaadina maya anaga xukuumadeena tiin waa idin taageersanaa waa idin jecelnahay Soomaalinimadu waa jecelnahay dadnimadu waa jecelnahay dalkeena waan jecelnahay mar walba waxaan jecelnahay dalkeena wixii dhib ku wada ama wixii khalad ka dhaca inaan xalino misana aan waxyaabo badan aan ka sameeyno bal Soomaaliya ciidankiina booliska waa idin jecelnahay wax walba aad sameeynaysan ku samee si xaal masura ku samee si farxad anaga ay noo gasho maadaama Soomaali anahay maadaama farxadeena ay tahay mid zaid badan misan ay idinku qanacsanahay aan madaxiina u joogno inaad waxyaabo badan aad sameeysan si xaal masura yeesan dhicin in inta la isku bursado inta la iskala baxo inta lagu dhaco xaq laga bood inta loo soo noqdo yeesan dhicin mar walba dhacdo si xaal masura si anaga sharafta gabdheena ay naqato mid horumar si gaarsa misana berita ay dhiiradaan gabdheena Soomaaliyeed mar walba ay ku dhiiradaan inay sameeyaan wanaaga hadaba Soomaaliyeed gabdheena Soomaaliyeed waana jeceshiin waa idin jeednaa waa ognaa waxaad tihiin waan ognaa waxaad naga mudantiin waa ognahay waxaad tihiin oo mar walba aad mudantiin in la sameeyo laakiin inaka ay gabar adan ku haystaa adiga gabarey adan ku haystaa samee waxaan jecelnahay ha sameynin samee waxaan jecelnahay ha sameynin waxaan jeclan laakiin adigiyo diraaci xijaab isku jees lagu talagalay surwaalkii ana gashayso gashidka waan
كوب waxaa lidi ku tahay amniga كوب waxaa lidi ku tahay amniga laba waxaa lidi ku tahay shariicada islaamka saddex waxaa lidi ku tahay diin dhaqanka Soomaaliyeed ay naaga alaas maari bultooda amal jaray ay naaga inta tandina ka soo feedo masaka waxaa leedahay junoolyaalkii hor miyaadii 76 dadkii oo fiilan ku xirnaa miyaadii taas ma qaadeen taas gabdho ma idinka qaadeen gabadhi aan ku aragnana boolis wani xirga lalaak ani karbaashkay buud ay diyaarsan buud meel la dhan yahay ay diyaarsan wax kale mu diyaarsan wax kale mu diyaarsan xataa in qaladkiin aad ku karbaasho qaladkiin in aad idin ku karbaasho intaysan taas dhicin ka digtoono waxaad samaynayso ka digtoono wax sharciga lid ku ah ka digtoono wax sharafta dawladda Soomaaliya dhinaca uga dhacay ka digtoono sida berita adii wax uusan ku gaarin mar walba u hesho farxad gooni ah taxadir waxa qiimeyn gooni ah oo berita ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed inkas qof kasto adiga kugu xariira si ay berito sharaftooda iyo karaamadooda aysan hoos u dhicin maanta adaa samaysay waxay samaysay surwaal ishaata soo gashatay wax soo baxay jidka soo martay مساعدة كان Soomaaliyan ay waa ku jeclay Soomaali ay waa ku jeclay waxaan jeclay xitaa wanaagaaga nagada ya akhay waxa idin sheega mar walbo taxadir ala muujiyo si wax walbo ay inoo hagaagan wax walbo ay inoo toosaan wax walbo ay inoo fiicnaadaan wili waxaad naga daawanaysaan Wadajir Media Show fadlan subscribe like share comment gambalelka furaba hadii gambalelka furways waa khadi wajigay ma arkay sid nuux ee ka tan nuux hada muqdooyo ya dad badan waa ogaaya uqdada qaban gambalelka fur uqdadan waa ka bixiba raaxo waxa deel doontiin riwaayadooyin kala kacsan muuqaal qurux badan cameraman farfudud editing farfudud isla markii واسو كري هنا سحن قلنا وزوج عنوق اللي بدي نروح كل من الرو ما قصتين عنوق معناه في رشالك لما ضلوا اسكور سار دق 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 sidoo kale waxaan in sheega nin walba ha isdiyaariyo muuqaal badan oo qurux badan inaad ka heli doontaa Wadajir Media asxaabta sidaas iyo نقول لكم انتم وحيسه له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته